السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرين جانال كمركلة سود واضح أدي هذا ومهتسنتهين مانت واثنين وأنا كوبي طبعاً بش السدادات سنة كلابا كن يشاني اللباتنك مقال كان وحربا ور مهمة أو كسب بحي وزارة أمن جودها أمريكا كودي بشان مانت كوبي طبعاً أو قصينا يدك إسكو دعونا يلا معنا إسقبا قف والدكيس دعوونaya iyo qof caruurtiisa u dacwoonayaba hadii ay tahay iyo dadka gudaha Mareykanka jooga oo iyaguna green card ka xareynaya gaar ahaan green card ka family based ka sharcigan ayaa qabanaya waana sharci qatar ku ah dadka isku dacwoonaya iyo kuwa gudaha Mareykanka jooga oo iyaguna doonaya green card in qaab marriage ama guur ah ay ku xareeyaan hadii la diidana waaba la masaafurin karaa arrintaas waa arrin muhiim ah oo aan rabo maanta inaan idin la wadaago iyo madaxweyne Trump oo maanta sheegay in gacan ku haynta iyo waliba maamulka iyo kala dambeynta amniga caasimadda Washington DC ay dowladda federaalka la wareegayso arrintaasina waan idin la wadaagayaa balse marka hore soo dhawaad labo arrintan muhiimka ah waxda dowladda Mareykanka u qaabilshan dhinaca immigration ka la yiraahdo USCIS waxaan ognahay inay hoos tagto wasaaradda amniga gudaha ee Mareykanka marka koodii bishan ayaa wasaaradda amniga gudaha waxay soo saartay sharciyo cusub oo la xiriira dadka visa ahaan isugu dacwoonaya ama green card family based visa-ga iyo dadka gudaha Mareykanka joogo oo iyagu gaar ahaan dadka laga yaabo wadanka intay sharci darro ku soo galeen qof muwaadin Mareykan oo citizen intay guursadeen doonayay inay green card ama sharci ku helaan arrintan marka waa arrin muhiim ah si wanaagsan waa inaad u dhageysataan waxda immigration ka u qaabilsan dowladda Mareykanka ee USCIS ta ayaa waxa ay wax ka bedeshay siyaasadeedii taasi oo qatar ku ah qof kasta oo green card apply gareynaya ama green card codsanaya taasi oo uu u marayo through a family member qof familkiisa ah uu doonayo waa dadka marka ay isku dacwoonayaan amaba dadku intay isguursadaan sida sharci darrada wadanka ku soo galaan wixii qof wadanka sharci darro ku soo galo uu guursanayo qof kale oo wadanka joogay isla markaana muwaadin ah marka laga bilaabo koodii bishan Agosto oo hadda aynu ku jirno 2025 amaradan cusub waxa ay awood u siinayaan saraakiisha immigration ka in ay applicationada diidaan iyagoo wax digniin ah aan siinin dadka applicationadan soo dirsaday taasina sidoo kale waxa ay qatar gelinaysaa in qaar kamid ah dadka codsiyadaas immigration ka soo dalbaday la geliyo removal proceeding wax la yiraahdo in wadanka laga masaafuriyo oo wadanka laga saaro arrintan marka isbedelkan cusub oo hadda la xiriira dadka codsanaya dhammaanba waxay ay quseynaysaa all family based immigrant dadka qaab visa ahaan isugu dacwoonaya oo wadankan Mareykanka dad muwaadiniin Mareykan ah oo visa ahaan isugu dacwoonayay marka waxa dadkaasi kamid ah in dadka ay muwaadiniinta Mareykanka xitaa haysta oo amaba kuwa green card ka haysta oo u dacwoonaya lamaane isqabo oo isku dacwoonaya caruurtaada oo aad u dacwoonayso waalidiinta oo u dacwoonayso iyo walaalaha oo u dacwoonayso inta badan walaalo ma dhacdaba in la isugu dacwoodo Mareykanka oo la isku keeno laakiin hadda waa ay ku soo dareen marka maxay yihiin labadan isbedel ee muhiimka ah oo la xiriira family visa oo wasaaradda amniga gudaha ay koodii bishan soo saartay isla markaana ay dhaqan gelinayso USCIS oo waxda immigration ka u qaabilsan dowladda Mareykanka marka iyadoo ay muuqato marka in isbedeladan labadan isbedel oo weyn ayaan idin la wadaagaya midka koobaad wuxuu yahay USCIS ta waa ay diidi karaan codsigaada aad qofkaasi ugu dacwoonayso without RFE or NOID maxaa laga soo gaabiyaa labadaas waan idin la wadaagaya labadaas arrin ayadoon lagu wargelin qofkii dacwadaas xareeyay ayaa applicationkiisa gabi ahaanba la diidi karaa markii hore waxa jiri jirtay in qofku marka applicationka uu xareeyo uu qof u dacwoonayo hadii ay applicationkiisa ay wax ay ka maqan yihiin dokumentiyadii loo baahnaa amaba sidoo kalena uu jiro qalad yar uu jiro waxa USCIS ay dhihi jirtay arrimahan soo socda ayaa qofka dacwadda xareeyay lagu wargelin jiray waxay tahay RFE waxa laga soo gaabiyaa request of evidence qofkii waxa la weydiin jiray war application-kaadi waan helay laakiin waxaasi ayaa ka dhiman ee ku soo dar
hadda arrintaasi ma jiri doonto marka waxay tahay waa ogeysiis qofka lagu ogeysiinayay in applicationkiisa loo baahan yahay in waxyaabaha ka qaldan amaba ka dhiman oo fiksi gareeyo isagoo soo diraya dukumentiyada dheeraadka ah ee la soo weydiiyey hadda arrintaasi ma jiri doonto applicationkii waa dirta Soomahan waxba ka qaldan macnaheedu waxay tahay gabi ahaanba waa la diidi doonaa iyadoo xitaa aan lagugu wargelin oo waraaq aan lagu soo dirin oo aan lagu dhihin applicationkaada waxba ka dhiman ee ku soo dar amaba qaladkaasi ayaa jira ee soo sax applicationkaada waa la diidi doonaa arrintan marka maxay muhiim u tahay qofka dacwadda ku xareynaya waa inuu yahay qof yaqaana immigrationka waa in qof lawyer oo sharciga yaqaana Soomaalidan waxaan sameynaa dad baa meel furto oo yiraahdo applicationada xareynayna waa la isaga tagaya lacag yar laga qaadaya laakiin hadda kadib application haddaad dacwad qof u xareynaysid qof lawyer oo sharciga yaqaano oo waxan yaqaano oo ku xareynayo waa inuu ku xareeya haddii ay wax ka qaldamaan ama waxyaabihii lagaaga baahnaa aad dhameystiri wayso waxay noqonaysaa applicationkeedii gabi ahaanba deny ayaa la dhahayaa oo waa la diidaya NOID-na maxay tahay sidoo kale waa notice of intent to deny iyadoona lagu soo sheegin oo aan lagu dhihin waxaan doonaynaa applicationkaadii inaan diidno macnaha ayaa applicationkaadii la diiday waxay tahay a formal warning ayadoon digniin lagu siinin waxay tahay oo aan casekaada ayaa gabi ahaanba la diidayaa iyadoo aan lagu siinin sidoo kale fursad aad waxyaabihii kaaga dhimana aad ku soo dhameystirto ama qaladkaadii aad ku saxdo iyadoo aan lagu siininba applicationkaadii waa la diidaya ayadana NOID-ga saas ayaa laga soo gaabiya marka hadda waxay noqonaysaa in USCIS-ta saraakiisha ka tirsan ayba labadaasi istabama tallaabooyinkaasi gabi ahaanba ay ka tallaabsadaan isla markaana si dhaqsi ah ay ku diidaan applicationkaadii iyadoo aan lagaaga baahanin in dukumentiyadii kaa maqnaa aad soo dhameystirto isla markaana aysan jirin wax cad oo applicationkaada lagu diidayo aysan jirin a legal basis of approval oo macnaha in applicationkaadii waxyaabihii lagu ogolaan lahaa iyagoo meesha aysan ku jirin in applicationkaadii horey laga diidayo arrintaasi marka maxaa ka dhalanaya waxaa jiri doonta inaysan jiri doonin wax digniin ah oo lagu siiyo ka hor inta applicationkaada aan gabi ahaanba la diidin iyadoo aan applicationkaadii amaba codsigaadii aad qofka ugu dacwoonaysay markaad xareysay iyadoo aan wax digniina lagu siinin deny ayaaba lagu soo qoraya hadda safaaradaha Mareykanka uu ku leeyahay wadamada dibadda sida Nairobi iyo Addis Ababa dad badan ay igala soo xiriiriyay oo dhahayay deny ayaa nala siiyay waraaqa ayaa nala soo siiyay arrintaasi already hadda waa ay ba socotaa marka haddii applicationkaada la diido marka waxaad u baahan tahay inaad applicationkaadii mar kale dib u soo bilowdo isla markaana lacagihii aad bixinaysay haddana mar kale aad dib u bixiso marka deny ayaa lagu yiri marka waa inaad dib mar kale aad u apply gareysaa lacagihii aad bixisayna aad mar kale dib u bixisaa haddii marka qaladaad ay jireen oo markii hore la saxi karay hadda arrintaasi ma jirto oo waxaa ka dhalan kara caqabado joogto ah macnaha waxay tahay qof ayaa wadanka sharci darro ku yimid ama wiil ahaado amaba gabar ahaado qof kaloo muwaadin Mareykan ayay isguursadeen markaasi kadib applicationka ayaa la xareeyay qaladaad ayaa dhacay qofkaasi sharci darrada ah marka oo qofka muwaadinka oo u dalbayay green cardka asaga removal proceeding ayaa gabi ahaanba la gelinaya oo wadankii waa laga masaafurinaya markii la arkaba qofkan in uusan wax sharciya uusan Mareykanka uusan ku joogin talaabada labaad waxay tahay marka USCIS-ta waxa ay sidoo kale ay soo saaraysaa NTAs wax la yiraahdo oo dadka qaar marka applicationadooda la diido arrintan waxay quseynaysaa gaar ahaan dadka wadanka sharci darrada ku soo galay notice to appear waxay tahay macnaheedu waxay tahay waa talaabada ugu horeysa oo qofka la gelinayo waa inuu maxkamad markaas qofka uu yimaado dadka qaar marka applicationkooda la diido maxkamadda immigration oo hortago uu isdifaaco marka waxay noqonaysaa talaabada ugu horeysa oo qofka lagu diyaarinayo qaabkii lagu masaafurin lahaa iyadoo la eegayo sidoo kalena talaabooyinkan cusub oo hadda immigration ay soo saareen la eegayo haddii marka applicationkiisa qofkan uu ahaa qof wadanka si sharci darraha ku joogay isla markaana codsigiisa green cardka uu ku dalbanaya la diiday USCIS-tu qofkan waxayba gelinaysaa removal proceeding wax la yiraahdo oo ah in wadankii laga masaafuriyo arrintan marka qatarta ka dhalan karta maxay tahay applicationada dadka wadanka sharci darrada ku jooga laakiin doonaya in qof muwaadin Mareykan ah iyagoo u maraya oo family member oo citizen ah ay sidaas dhalasho ku helaan ayay quseynaysaa iyo dadka kale oo iyaguna qorsheynaya inay codsadaan waiver wax la yiraahdo oo formka la yiraahdo
I-601 kuwaasi oo doonaya in ay ka dhammaystiraan safaaradaha ama qunsuliyadaha waddanka dibaddiisa ku yaala. marka labadaasi arrin oo muhiimka ah ayaa soo baxday oo hadda ay wasaaradda amniga gudaha ay soo saartay islamarkaana ay dhaqan gelinayso waaxda dowladda Maraykanka u qaabilsan USCIS-ta. marka applicationkaada aad xareynayso oo qof aad u doonayso inaad u dacwooto ama lamaane ahaada ama dad waalidiin aad u dacwoonayso ama caruurtaada aad u dacwoonayso iska hubi qofka kuu xareynaya dacwadaasi ma yahay qof arrintan aqoon u leh. qof ma tahay ha isaga tagin. haddii qalad uu dhaco ama dokumentiyadii lagaaga baahnaa aad waqtigii lagugu talagalay xitaa ma jirta hadda in lagu soo ogeysiinayo lagu leeyahay waxbaa kaa dhiman. applicationka marka hore aad dirto USCIS-ta ayuu tagaya. marka approval lagu siiyo markaasi kadib ayuu National Visa Center-ka u gudbaya. National Visa Center-ka sidoo kale marka uu ka gudbo lacagihii applicationadii iyo dokumentiyadii lagaaga baahnaa dhamaystirto markaasi kadib waxa uu gudbaya safaaradda oo kiiskaada uu ka furan yahay oo qofka aad u dacwoonaysa halka uu joogo. laakiin hadda USCIS-ta ayaaba dadkii deny hore ka siinayso applicationkaadii diidayso maxaa yeelay qalad ayaa ku jira amaba sidoo kalena markii aad xareynaysay waxyaabihii lagaaga baahnaa oo idil ma aadan dirin. markii hore haddii wax kaa dhiman yihiin waa lagula soo xiriiri jiray waraaqa lagu soo diri jiray waxa lagu dhihi jiray waxaas ayaa kaa qaldan ama waxaas ayaa kaa dhiman. hadda arrintaas meesha waa ay ka baxday automatically applicationkaadii hore ayaa laga diidaya. intaasi waxaan filayaa inay caddahay oo dadku ay muhiim ay tahay inay arrintaasi ay ogaadaan. hadda dad fara badan oo waxaa jira ay green card-kooda intuu ka dhacay waddanka mar hore sharci darro ku yimid oo sanado joogay oo markii ay doonayeen inay cusboonaysiistaan ICE ay gacanta ku dhigtay ooba la masaafuriyaba. arrintaasina hadda waa ay socotaa. marka dadka waddanka sharci darrada kusoo galay waxaa laga yaabaa qaarkood green card 2 sano ayay heleen markaasi kadib ama lamaane isguursadeen ama qaabkay ku helaanba markii uu kaa dhaca marka waa doonaysa inaad mar kale dib u cusboonaysiiso ICE ayaaba kugu sugaysaba xarunta immigrationka dhab ayaa lagu siinaya horey ayaa laga qaadaya oo lagu masaafurinaya. ugu dambeyntii ninkii Trump ahaa maanta shir jaraa'id ayuu aqalka cad ku qabtay iyadoo waliba ay ku hareereysnaayeen wasiirka gaashaandhigga Pete Hegseth, wasiirka cadaaladda Pam Bondi, taliyaha FBI-da Kash Patel, ninka DEA-da madaxda u ah, wasiirka arrimaha gudaha ninka la yiraahdo Doug Burgum. dhammaan wuxuu Trump sheegay in magaalada caasimadda ee DC uu dambigu ku batay isla markaana nabadgelyo aysan ka jirin nadaafadna aysan lahayn. horta wuxuu yiri dadka homelesska gabi ahaan waa ururinayna meel ayaan geynayna dadka dambiilayaasha Soomaaliya xabsiga ayay leeyihiin xabsiga ayaan ku ururinayna. ciidamada booliska waxa uu gacanta u geliyay oo hadda la wareegay wasiirka cadaaladda Pam Bondi. waxa uu sidoo kale sheegay in FBI iyo ciidamo kala duwan ay habeenkii ay gaaf wareegi doonaan caasimadda DC. waxa uu yiri magaaladan waxa loo baahnaa magaalada ugu ammaanka badan caalamka inay ahaato laakiin hadda waxa ay ka ammaan xunta ayuu yiri Baghdad iyo magaalooyin kale oo la barbar dhigay sida Bogota iyo Mexico magaalooyin ku yaala. wuxuu yiri marka arrintaasi ma jiri doonto haddii loo baahdana ciidamada National Guard-ka waan keeni doonaa ayuu yiri si ay ammaanka ay u sugaan. arrintan waxa uu yiri Congress-ka waan ogeysiin doonaa sidoo kalena maayarka magaalada waan ogeysiin doonaa. District of Columbia ama caasimadda DC ee Washington DC ee Mareykanka waa sida Muqdisho oo kale ma lahan senataro laga soo doorto gudoomiye gobolna ma lahan. waxaa maamulaya oo kaliya maamul hoosaad iyagu ay leeyihiin dowladda hoose iyo maayarka. marka wuxuu yiri maayarka oo Mariel Bowser haweeney madow ah ku wargelin doonaa isla markaana sidoo kale waxaan ku wargelinayaa Congress-ka arrintan. waan ogahay dimuqraadiyiintu in hal mid oo kamid ah uusan u codeyn doonin maxaa yeelay iyagu ma yaqaanaan sida dambiyada loola dagaalamo. laakiin waxa uu sheegay in hadda dowladda federaalka ah ay la wareegi doonto ammaanka. dadka bandow ayaan habeenkii lagu soo rogay oo hadda sabtidii iyo xaddii waxaa la arkayay ciidamo kala duwan iyo kuwa FBI oo ilaa iyo 100 ka badan oo gaaf wareegaya. waxayna bilaabeen dadka dambiilayaasha kuwa sharci darrada kuwa daroogada ka ganacsado dhammaantoodba inay soo qabtaan. wuxuu yiri dadka waddanka sharci darrada kusoo gala waan masaafurinaynaa kuwa kale oo dambiilayaashana xabsiyo ayaan gelin doonaa gaar ahaan dhalinyarada oo wuxuu yiri waddankan ku koray amaba ku dhashay oo dambiilayaasha halka ay mudan yihiin oo xabsiga ayaan geyn doonaa. Trump oo arrimahaasi ka hadlayay waxa uu yiri So today we're declaring public safety emergency in the District of Columbia, and Attorney General Pam Bondi, who's fantastic, is taking command of the Metropolitan Police Department as of this moment. And I'll be making the appropriate notifications to Congress and to the mayor, our new DEA administrator, who's one of the top in the country. Terry Cole. Terry, thanks. And you'll be designated as the interim federal commissioner of the Metropolitan Police Department. Okay? This city will no longer be a sanctuary for illegal alien criminals. We will have full, seamless, integrated cooperation at all levels of law enforcement, and we'll deploy officers across the district with an overwhelming presence. You'll have more police
and you'll be so happy because you'll be safe. When you walk down the street, you're going to see police or you're going to see FBI agents. We're going to have a lot of agents on the street. And you're going to have a lot of essentially military, and we will bring in the military if it's needed, by the way. We're going to have National Guard. We will bring in the military if needed. They'll immediately begin massive enforcement operations targeting known gangs, drug dealers, and criminal networks to get them the hell off the street, maybe get them out of the country, because a lot of them came into our country illegally. They shouldn't have been allowed in. They come from Venezuela. They come from all over the world. We're going to get them the hell out. They won't be here long. But some of these people, a lot of them, are homegrown criminals. And these are bad people. These are rough people. And this is just a list of some of the people that were given to me today. aad iyo aad u mahadsantihiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waaro idin la sidaa iyo nabadgelyo